رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيري ayaa xilalkii ka qaaday saddex kamid ah golahiisa wasiirada sidoo kalena waxa uu magacaabay saddex wasiir oo bedelaya saddexda wasiir ee xilalka laga qaaday wasiirada xilalka uu ka qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa ay kala ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Mr Juxa iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu magacaabay saddex wasiir oo bedelaya saddexda wasiir ee xilalka uu ka qaaday warkan waxa inoo eegaysa wariyahayaga Farxiye Maxamuud Yuusuf رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيري ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyay saddex kamid ah golahiisa wasiirada waxaana xilka laga qaaday Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Marwo Qadar Axmed Ducaale oo ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo Cabdi Faarax Juxa oo ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana loo magacaabay xilalka laga qaaday wasiiradaasi Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo loo magacaabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Sabriye oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya halka wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka ee Soomaaliya loo magacaabay danjirihii hore ee dalka Mareykanka u qaabilsanaa dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay xilka qaadista lagu sameeyay qaar kamid ah golaha wasiirada war degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu xilkii ka qaaday saddex wasiir isla markaana magacaabay saddex wasiir oo cusub ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa saddex wasiir xilalkii ka qaaday isla markaana saddex wasiir oo cusub uu magacaabay xilalkaas banaanaaday ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kala ah mudane Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Marwo Qadar Axmed Ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha iyo mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa wareegto uu soo saaray oo ku magacaabay saddex wasiir oo cusub oo buuxinaya xilalka banaanaaday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 97 farqadiisa saddexaad ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka 97 farqadiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka 100 xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirka ganacsiga iyo warshadaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wuxuu magacaabay qodob koowaad mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey waxa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha koowaad 2018 sidoo kale mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 Janaayo 2018 sidoo kale danjire Axmed Ciise Cawad waxa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha koowaad 2018 wasiirada cusub ee la magacaabay waxa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda qodobka saddexaad magacaabidani waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo uu saxiixay waxaana lagu soo saaraya faafinta rasmiga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya intaas ayay ku egtahay warkii degdeg ahaa ee ka Farxiye Maxamuud Yuusuf Som News TV Muqdisho